markale soo laabasho wanaagsan asxaabta ku xiran abarteena GalaTube waa kooraskeeni taxanaha ahaa ee QuickBook iyo casharkii 8aad oo aynu ku eegi doono waxa loo yaqaano offenders ama cida inagu aynu ku xiranahay aan la sameyn doono tacaamulka ama tusaale ahaan waxyaabaha aan ka ganacsanayno aan ka soo iibsan doono aan ka soo qaadan doono adigoo ku laabanaya muuqaaladii kuwan ka horeeyay aan kaga soo hadalnay QuickBook iyo qaabka uu shaqeeyo waxyaabo fara badan oo aad faa'iido doonto. Hadaba waxa aynu eegi doonaa offenderska iyo sida loo maamulo iyo sida loo tacaamulo ayaan eegi doonaa. Si aad u tagtid offenderska u heshid waxaad ka heli kartaa laba meelood inaad tagtid offender menu kadibna aad dalbatid offender center. Marka offendersku ama suppliersku waa cid inagu aynu ku xiranahay ee aynu wax ka soo iibsan doono ama aynu ka soo deeman doono. Hadaba qaabka labaad ee heli karto offenderka waxa weeye inaad tagtid home page kaaga kadibna aad dooratid offender aad riixdid kadib waxa ku soo bixi doonta daaqadan oo aad ka arki doonto offenderska marka jira ee abuuran iyo information kooda macluumaadkooda iyo transactions waxyaabaha idin dhexmaray. Iminka wax offenders ah oo available ah oo inoo abuurni ma jiraan. Hadaba si aynu abuurno halkan ayaan farta gelin doonaa kadibna waxaan dalban doonaa new offender. New offender marka aan doorano dhowr daaqadood baan ka soo bixi doona. Waxa uu sareeyaa address information tusaale ahaan halkan waxaa gelin doontaa offender name-ka. Marka waxaa jira company name iyo offender name. Offender name-kani isagu waa magaca ka soo bixi doona liiska iminka aan arkanay ee ka soo bixi doonaan offenderada marka inoo jira. Halkan waxaa gelin doonaa company-ga magaciisa. Marka tusaale ahaan kale waxaan iska gelin doonaa Faarax baan iska gelin doonaa tusaale ahaan kale Jaamac oo ownerka ama managerka company-gaas ama offenderkaas. Hadaba halkan waxaa yaala opening a balance waxa laga yaabaa company-gaagu ama business-kaagu in uu waxyaabo kale isticmaali jiro xisaabaadkiisa ku degsan jiray ama manually gacanta ma garanaysaa ku shaqeyn jiray oo xisaabaadka gacanta laga qori jiray. Marka waxa laga yaabaa in barnaamijkan loo soo wareego haddii marka company-gani uu wax deyn ah kugu lahaa halkan ayaa gelin doontaa date-kiina bartan ayaa ka gelin doontaa laakiin wixii transaction ah dib baan ka samayn doonaa. Halkan waxaan gelin doonaa company-ga magaciisa tusaale ahaan kale kadibna waxaan oran doonaa Carmen General Trading tusaale ahaan kale ayaan gelin doonaa trading company ayaan gelin doonaa. Hadaba markaan soo gelino halkan full name-kii baan gelin doonaa tusaale ahaan kale waxaan leenahay Faarax Jaamac Maxamed. Faarax Jaamac Maxamedna tusaale ahaan kale waxaan leenahay waa managerka tusaale ahaan kale job title-kiisa ama shaqadiisa tusaale ahaan kale waxaan leenahay waa manager. Telephone number haddii uu leeyahay halkan aad gelinaysaa. Haddii uu leeyahay tusaale ahaan kale shaqadu ay leedahay telephone number haddii telephone kale wato halkan ayaad gelin doontaa. Haddii email number uu jiro halkan ayaad gelin doontaa. Website haddii uu jiro halkan ayaad gelin doontaa. Badhanka koobi ku taala haddii aad ku dhufaktid iyadoo lafteeda macluumaad fara badan baad soo gelin doontaa tusaale ahaan kale magaalada oo kale tusaale ahaan kale zip code-ki oo kale tusaale ahaan wadankii oo kale halkan ayaa ka dooran doontaa oo aad ka soo bixin doontaa. Marka waxaa loo yaqaanaa payment setting waxa kale oo jira waxa loo yaqaano tax setting account setting and additional information. Payment setting oo kale tusaale ahaan kale account number-kooda oo kale iyo qaabka ay lacagaha ama ku deemiyaan oo kale 30 tusaale ahaan waxay u talagaleen payment terms-kan oo kale in wixii garanaysaa bills aad ku bixiso tusaale ahaan 30 shaqadood oo kale. Waxaa loo yaqaanaa additional information oo kale vendorku waxa weeye waa supplier oo kale iska oran kartaa ama consultant ama service providers ba supplier iska oran kartaa. Tax kan setting kan isagu waxa weeye waxa shuuraya laga jaro oo sameyn karaysa xaqana tusaale ahaan kale akoonada marka bills-ka tusaale ahaan lagu dalacayo oo kale ama dalaciisa oo kale tusaale ahaan kale akoonada ay saameynayso waxyaabaha ay gelin doontaa additional information kana sidaas ku keento kadibna waxaan leenahay okay. Kadibna halkan automatically waxa uu soo galay Faarax Jaamac laakiin company name-ku waa Carmen General Trading Company macluumaadkoodii telephone number-koodii wixii oo dhan halkan ayay ka soo bixi doonaan. Marka waxyaabahani waa waxyaabaha hadhowto marka aad daabacdo biilasha tusaale ama lagu soo dabco report-ka ka muuqan doona weeyaan. Wax transaction ah oo na dhex marayna ma jiraan. Waxaad kala samayn kartaa edit tusaale ahaan imika hadaan ka farta gelino waxaan siinaynaa right click
kadib waxaan leenahay edit a vendor. Vendorkii halkan ayaad ka edit garaynaysaa wax kasta oo ku saabsan. Halkan ayaad ka bedelaysaa faarax jaamac aadan baan leenahay tusaale ahaan. kadib waxaan leenahay okay. kadibna automatically ayuu isu bedeli doonaa wax loo yaqaano faarax aadan maxamed. automatically ayuu isu bedelaya wax alaale iyo wixii aad soo bedeshid. marka waxaad samayn kartaa halkan waxaad ka raadin kartaa waxa loo yaqaano vendorska marka halkan ku jiro oo vendorska markay bataan halkan ayaad geli doontaa wax loo yaqaano vendor name kaaga tusaale ahaan kale halkan ayaad ku qori doontaa. imika laakiin nagu waxaan haysanaa one vendor. halkan oo kale waxaa ka dalban kartaa all vendors dhammaan vendorada ku jira. halkan waxaa ka dalban kartaa waxa loo yaqaano active vendors. waxa loo yaqaano vendorska marka active-ka baad gelin kartaa tusaale ahaan kale haddii aad u baahan tahay vendorka marka inaad wax ka bedeshid oo aad deletid oo kale isiyada laftigeeda right click baad siinaysaa. kadib waxaad leedahay add delete a vendor. automatically ayuu u baxaya. marka wixii transaction ah qaabka supplierska ama vendorska wax looga soo iibsado, qaabka alaabta looga soo deynto iyo macluumaad kasta oo ku saabsan vendorska waxaynu ku eegi doonaa insha Allah casharkeenan cashar ku xiga inta aynu ku kulmi doono casharkan casharka ku xiga. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala.